kulan aad u xiiso badan ayaa galabta lagu qabtay garoonka kubadda cagta ee magaalada Barawe. kulankan waxaa soo qaban qaabiyay wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib u heshiisiinta dowladda koonfur galbeed Soomaaliya iyo maamulka magaalada Barawe waxaana kulankan wada ciyaareen Hilaac iyo Kalsooni waxaana labada kooxood ay qaybtii hore ay soo bandhigeen ciyaaro qurux badan waxaana qaybtii hore gacan sareysay kooxda kubadda cagta ee Hilaac waxaana qaybtii hore gool kaga naxsatay kooxda kubadda cagta ee Kalsooni waxaana ciyaarta ku soo cidlaatay qaybtii hore 1-0 oo ay ku hogaaminaysay Hilaac qaybtiisa labaad ee ciyaarta markii la isku soo laabtay kooxda kubadda cagta ee Hilaac ayaa bandhigeed goolasha sii wadatay waxayna ka dhigtay 2-0 waxaana ugu dambeyn ku soo idlaatay ciyaartu 2-0 oo ay koobka Hilaac lagu guddoonsiiyay qaar ka mid ah taageerayaasha ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan kulankan. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ويفي عينهن هذه كل اللي صوت دب اللي سوى عليه أما اللي صوت بزين كوب كان نبدأ أما لو تلقى مدام وزير وفد جوان أنا يا لو تلقى أما لو أقاسمي ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن جوجنا جرونكا الشيخ محمود وعسلي وقلبت لو قبتي كوب كان نبدأ waxaa kulmay laba team oo la isku keenay team Hilaac iyo team Kalsooni ciyaartana way socotaa waxaan rajeynayaa insha Allah si nabad inuu ku dhamaado koobkan waxa loogu talagalay waxaan ugu talagalay wasiirka ku-xigeenka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed waxa ugu talagalay koob nabad iyo isdhaxgal iyo isxafis marka insha Allah waxaan rajeynayaa inuu si nabad iyo caafimaad inuu ku dhamaado insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh. maantoona oo aniga aad joogno garoonka waxaan taageersanahay kooxda FC Barawe aad iyo aad ayaan u taageersanahay waxaan leeyahay guul wacan ilaa hadda qayb la barahay qayb ugu hore qayb ugu dambe ma geerno rajisa ku qabtay rajo waxa ku qabaa kulay wallahi FC Barawe inay guul qaadato ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Barawe ayaa ka hadlay kulankan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh. dhammaan waxaan salaamayaa baxda sportiga ugu horeeyo gudoomiyaha degmada Barawe ee wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha xilwaanka sidoo kale dhammaan bulshada joogta deertan ku sugan garoonka weyn ee degmada Barawe waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh. bacdu salaam maanta waxaan noo socdo koob waxaan noo furmay koob lagu magac daray isdhexgalka bulshada oo koobkaasoo soo qaban qaabiyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha sidoo kale iyo gudoomiyaha degmada Barawe marka koobkan waxaan ii sheegay maanta oo jimce ay tahay waxaa loogu talagalay bulshadii in la isu keeno oo dib u heshiisiintii oo socotay in aydan soo ka mid noqoto marka ma sha Allah hadeertan waxaan joog koobkii meesha yaalo waxaan u taaganahay labada kooxood Kalsooni iyo team Kalsooni iyo team kale Hilaac team Kalsooni Hilaac hadeertan wada dhiilaayo
waa kaambiin dambe marka waxaan rajeynayaa kooxda oo kusoo baxdo ku guuleysto inay koobka qaadi doonto kooxda ku xigtana inay abaalmarinteena siin doonto insha Allah marka waxaan dhihi lahaa bulshooyinta ku dhaqan degmada Baraawe waxaad badisaan isboortiga isdhexgalka bulshada degmada waaye isboorti haddaad isha maqasho waa isdhexgal bulshadana waxay u baahan tahay mar walba inay isha ay helaan adeegyada baahida ay u qabaan isboortiga waxbarasho waxyaabo badan ay u baahan tahay marka qof mar hadduu isboort ku jiro waxa siyaasadii waxyaabaas ma geli karo waayo wuxuu ku mashquulsan yahay bulshadii isboortigii iyo waxaas marka aadan ugu mahad celinaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo guddoomiyaha degmada ka soo qayb galay dhammaan madaxda ka soo qayb gashay waxaan leeyahay waa garoonkiini degmadii Baraawe ku soo dhawaada 100% marka ku maasantiin ma sha Allah kulankan waxa kale oo ka hadlay gudoomiyaha degmada Baraawe Umar Sheekh Cabdi bismillaahir rahmaanir rahiim wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha dawladda hoose dib u heshiisiinta dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya maamulka degmada qaybihiisa kala duwan xildhibaan Sheekh Dinki laamaha amniga qaybahooda kala duwan bahda sportiga iyo ciyaartooyda maanta ay kulanayaan maanta oo ka dhacday isdhexgalka bulshada runtii taasina ay soo qaban qaabiday maamulka iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka degmada kulankaas oo ah isdhexgal bulsho oo nabadda oo loogu sheekeynayo taasina waxa oo daliil u tahay nabadda magaalada ka jirto iyo xawaashi iyo dadkii oo shacabka magaalada ku dhaqan iyo nabadii ka taagan waxaa kale oo jirto is-afis oo koobka lagu magac daray is-afis cid Allah cidii oo qof oo dhibaatay u aragto arin kale ay u aragto inay isku cafiyaan koobkan waa koob is-afis insha Allah wa ta'ala taas kale u jeedaan hadda waxa lagu guddoonsiinaa koobabkii iyo fulanooyinkii maamulka iyo ugu dambeyn kulankan ayaa waxa soo xiray wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dawladaha hoose iyo dib u heshiisiinta dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya Maaxi Maxamed Ciise ayaa sheegay in kulankan uu yahay mid isdhexgal bulsho iyo is-afis maamulka degmada qaybahiisa kala duwan tababarayaasha gudoomiyaasha oo soo agaasimay kulankan oo isdhexgalka bulshada waxaa kalaan rabaa inaan u mahad celiyo hay'adaha amniga waxaa kalaan rabaa inaan u mahad celiyo bahda saxaafadda ciyaartooyda marka waxaan ku sugannahay maanta degmada Baraawe maanta waxaan joognaa degmada Baraawe garoonka degmada Baraawe waxaan koob aan u dhignay annaga iyo maamulka degmada oo iskaashanayno koobkaas oo magaciisu yahay koobka nabadda waxaa lagu magac daray koobka nabaddana kulli ayaantan waxaan ka shaqeynaynaa waxaa ka socda degmada waad ogtihiin inay ka socdeen maamul u sameyntii golaha deegaanka marka koobkaas wuxuu daba socdaa nabaddu daba socdaa marka ciyaartooy fiican inta ka soo bandhigtay waana mahadsan yihiin ciyaartooydii si quruxda badan iyo u tartameen haddana waxaan rabnaa inaan ku wareejino hadiyad oo aan ugu talagalnay annaga iyo maamulka inaan ku sii wareejino waxaan rabnaa inay ka soo qayb qaataan ama ay soo heegan noqdaan tababarayaasha iyo waxaan ka codsanaynaa dadkii howlaha wadeen gudoomiyaha dhalinyarada iyo gudoomiyaha isboortiska iyo kulligooda waxaan codsanaynaa inay noo soo dedejiyaan haddii ilaahay kabtanka kooxda Hilaac ayaa dareenkiisa nala wadaagay ku aadan kulankan kabtan Fabio Cannavaro waxa waaye naadiga FC Hilaac waa ku faraxsanahay koobka qaadnay koobka munaasabada ay soo abaawileen maamulka iyo wasiirada xildhibaanada meesha joogan aad ugu faraxsanahay inay koobkan guddoonsiyaan maanta waxa waaye maalin weyn ahayd maalin taariikhi ahayd maalin ay loowi doona maahan waa maalin aad ugu faraxsanahay oo koob weyn helnay waxa waaye koobkeenina waa kana waa maasantiin soo dhawaado maamulkeena sharafta leh si kasba ahaatee wasaaradda arrimaha dowladda hoose iyo dib u heshiisiinta dowladgoboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa ay kulamo gargaar ah ka wada magaalada Baraawe si ay bulshada u horumariyaan gaar ahaan dhalinyarada kubadda cagta ee ciyaaraha Cabduqaadir Maxamed Faqi TV-ga Som TV Soomaaliya Baraawe gobolka Shabeellaha Hoose